إن شاء الله قبل لقبة بس مي Are you single? maxaa ka jira arrinka furniinka King Jaamac maxamed altame kala tagan jacaylkoodii hore mee burbure mise jacaylkoodii hore ayaa waxba ka jirin jacaylkii heestii ay soo caashaqeen ahaa jeel caashaqintan galay sidoo kale heestii iskoorka jabisay 1 week 1 million maxaad kala socdaa arrimaha baraha bulshada la xiriira sidoo kale muuqaal laga soo duuba ama ay warbixin ku shaacisay taasoo ah in ay sheegtay in maxamed alta iyo jacaylkiisa xaggee ku dambeeyay muuqaalo sir ayaa nii haynaa saaxiibayaal intaana nii soo gudbin saaxiib waxaan kaa codsanayaa inaad channelkeena subscribe saarta like-na saarta muuqaalka si gaaro ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddaba saaxiibayaal haddaad dhinaca Facebook naga daawanayso fadlan muuqaalka like saar siina share gare haddaba fanaanada caanka King Jaamac ayaa waraysi ku sheegtay in jacaylka maxamed alta uu ahaa been amuur sidoo kalena dadka Soomaaliyeed mid ahaa lagu jahwareerinay haddaba muuqaalka iska soo duubtay iyo muuqaalkan yar ee sidoo kale baraha bulshada gilgilay gaar ahaan baraha Facebook iyo sidoo kale TikTok gaar ahaan sidoo kale YouTube muuqaalo badan oo la soo geliyay taasoo laga sheekeynay in King Jaamac iyo maxamed alta ay isfureen laakiinse King Jaamac oo arrinkan ku dheeraatay kadib markii waraysi ay ka qaaday mid ka mid ah hablaha ay isku magaalo joogaan haddaba King Jaamac oo sheegtay iyaduna barnaamij 2020 sanadkii hore tagay hadalhayntiisa baraha bulshada dadka Soomaaliyeed maqlayeen kaas oo ahaa sanadkii ay fanaaniin badan ee fanka ka fadhiisteen sida Maxamed Biiki iyo sidoo kale fanaaniin kale oo caan ah haddaba fanaaniintaas iyadoo ku dayanaysa iyo sidoo kale fanaaniin dagaal ka dhex qarxay iyo sidoo kale fanaaniin sheegtay farxiyo kabayre in ay mashaariic ku soo qaataan fanaaniinta Soomaaliyeed ee oranaya wan ka baxnay fankii kaasoo dib loogu ridiyay fankii Soomaaliya xaggii hore loogu wada waa sida ay sheegtay mid ka mid ah fanaaniinta Soomaalida ee ku nool waddanka UK haddaba fanaanadan King Jaamac ayaa sheegtay iyadana laga soo sheegay in ay ka been abuureen dadka Soomaaliyeed kaasoo lahaa King Jaamac fankii way ka baxday haddaba arrinkan oo mar ay sheegtay waraysi si toos ah u baahisay in ay King Jaamac wali fankii ku jirto si galna ay tahay wali aanay cid qabin haddaba maxamed alta iyo jacaylkiisa xagii ku dambeeyay wuxuu noqday jacaylkii qoyay badda lagu tuuray mise jacaylkan ayaa ahaa mid dadka Soomaaliyeed been abuur lagaga sheekaysanayay sidoo kale jacaylkan maxamed alta ayaa sheegay in ay heesun soo wada saareen maadaama yihiin laba fanaaniin oo isla waddanka joogay haddaba arrinkaas ay Soomaalidu mooday in ay heesta qaraxday iyo sidoo kale sida ay heesta u jiliyeen iyo qaabka heesta u dhacaysa ay Soomaalidu ka fahmeen in ay labadan fanaan ay iskuursadeen oo istamceen jacaylna halkaas ku abuurteen oo halkaasna ku aqal galeen laakiin arrinkaas runtii ay sheegtay ayaa ku tilmaantay mid been amuur